Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqanka. Maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qisadii dhex martay yaxaaska iyo daanyeerka. Waxaa saaxiib ahaa yaxaas iyo daanyeer. Yaxaasku waxau ahaa mid ku nool webiga dhexdiisa, daanyeerkuna waxau ahaa mid ku nool qiimaha waaweyn ee ka agbaxay webiga. daanyeerku waxa uu cuni jiray midhaha, marmarna waxa uu soo biyo doonan jiray webiga. yaxaaskuna waxau ahaa mid xilliyada qaar u soo baxa bannaanka ama xeeliga webiga. waxa uu isu dhigi jiray fallaadhaha adeeda. daanyeerkii iyo yaxaaskii waxa ay noqdeen saaxiibo isu dhow. daanyeerku waxa uu soo guri jiray midhaha, waxa uu siin jiray yaxaaska isagoo fuushan geedka ayaa uu soo tuuri jiray midhaha. maalin maalmaha ka mida yaxaaskii waxa uu iska tegay baddii. waxa uu tegay aabihii xanuunsanaya. waxaa la sheegay inay u dhow tahay beer daanyeer. yaxaaskii waxa uu aabihii ku yidhi, aniga ayaa haya daanyeer. aabihii waa uu la yaabay. waxa uu ku yidhi, daanyeerku waxa uu ku nool yahay duurka, sideebaad usoo helaysa ama usoo qaban karta daanyeerka? innagu waxaynu qaban karnaa wixii webiga soo galaa. yaxaaskii yaraa waxa uu yidhi, waxaan saaxiib lahay daanyeer, anaa soo qabanaya kaa. waxa uu yidhi, haye ii keen beerkiisa. waxa uu yidhi, waxaan ku keenayaa isagoo nool. yaxaaskii waxa uu yimid daanyeerkii waxa uu mooday inuu u baahan yahay midhihii. waxa uu soo tuuray midhihii. se ahaatee yaxaaskii waxa uu sheegay in ay faamilka ay leeyihiin xaflad oo uu raaco uu kasoo qayb galo. daanyeerka waa uu yaabay. waxa uu ku yidhi, anigu ma geli karo webiga. yaxaaskii waxa uu ku yidhi, may ha ka warwarin, aniga ayaa dushayda kuu qaadaya. daanyeerkii waxa uu yidhi, maya, waxay cunaya yaxaasyada kale. yaxaaskii waxa uu ku yidhi, may, aniga ayaa kaa ilaalinaya oo odhanaya waa saaxiibkeedina ma taaban karto. daanyeerkii waa uu ka yeelay. sidii ayaa uu kusoo fuulay dushiisa. yaxaaskii waxa uu la dabaashay webiga dhexdiisa. webigu wuxuu ahaa mid aad u ballaadhan. markii ay marayeen webiga bartankiisa, daanyeerkii waa uu fahmay in lasoo shirqoolay. aad ayaa u naxay. waxa uu sameeyey ayaa u garan waayey. yaxaaskii waxa uu ku yidhi, xaggaad igu wadaa? yaxaaskii lama hadlin, waa uu iskala socday. markii ay socdeen cabbaar ayuu daanyeerku waxaa la soo diristay baqdin iyo naxdin. dii uu isku tuuro webiga waxa qaadaya webiga. waxa uu ku yidhi, igu celi, xaggaad iga keentay, maan la gaadhaynba meesha. yaxaaskii intaa uu qoslay ayaa uu ku yidhi, waxaan ku wadaa aabbahay oo xanuunsanaya oo u dawo u tahay beer daanyeer. daanyeerkii xoogaa ayaa u fikiray. waxaa kusoo dhacday fikrad wanaagsan oo ku baxsan karo. waxa uu ku yidhi, maad ii sheegtid inaad beerkayga doonayso? beerkayga waxa uu saaran yahay geedkii. yaxaaskii ayaa yidhi, waaye, inugu celi. dib ayaa ula soo dabaashay. waxa uu ku soo celiyey geedkii. daanyeerkii waxa uu fuulay geedkii. waxa uu ku yidhi, doqon ayaa tahay, ma beer ayaa geed la saaraa? sidii ayaa uu kaga badbaaday daanyeerkii shirqoolkii. maalintii wixii ka dambeeyey, daanyeerkii waxa uu kusoo shiidi jiray yaxaaskii lafaha cambaha halkii uu markii hore ka siin jiray midhaha.